dood adag oo aan waxba la isku reeban ayaa ka dhacay fagaaraha qaramada midoobay ee caawa. Soomaaliyana waxay la soo baxday awood xad dhaaf ah iyo luuqad adag oo diblomaasiyadeed oo ay adag tahay mid ka mid ah danjirayaasha Afrika in sidan oo kale qaramada midoobay uga doodo. Safiirka nidaamka Israel ee dhawaan aqoonsaday Somaliland ayaa mikrofoonka la siiyay waxana uu soo bandhigay dood marka la eego golo noocaas oo kale in lala tagay aad u jilicsanay. doodiisa inta badan waxay dul wareegaysay in nidaamkiisa aanu ka shalaayi doonin tallaabada ay ku dhaqaaqeen aqoonsiga Somaliland. waxa uu si hoose oo aad u sii ridan uu faraha la galay xaaladda siyaasadeed ee waddankan ku yaala geeska Afrika ka jirta. isbeddeladii waaweynaa ee dhacay ee xagga nabadgelyo darrada ahaa iyo dagaaladii la soo maray. si gaar ah waxa uu tilmaamay in la dhibaateeyay oo xasuuq loo geystay shacabka qaar ka mid ah Somaliland ku nool. sidaas darteed waxa uu yiri ma jirto sabab ay Somaliland meel ugu sii xirnaan karto Soomaaliya. inta markay dhacdo kadib oo doodda in muddo la warwareejinaya ayaa loo dhiibay mikrofoonka Abuukar Baallo oo ah danjiraha Soomaaliya ku matalaya qaramada midoobay. markaas ayaa la maqlay shanqarta erayo waaweyn oo dhagaha diblomaasiyiinta halkaasi fadhisay ku dhacayay. Abuukar Baalle ayaa markii uu mikrofoonka qabsaday waxa uu ku bilaabay starvation of innocent people and killing and maiming hundreds of thousands, and someone doing all these things are lecturing us today what they call genocide and things like that. I'm shocked to listen to the outrageous comments from the Israeli representative. If we want to talk about genocide, it's Israel that's committing on our own eyes every day. He represents a government that killed more than 70,000 people, civilians, including children, women, elderly, doctors, and other health workers, and patients in hospitals, destroying infrastructures, deliberately starving people of Gaza. To come before us, esteemed council, and accuse Somalia of committing genocide is just ridiculous and it's unbelievable. The other thing that I want to add is he has no idea what Somali is and where Somalis are and what Somali stands for. I think the history is a selective history that he has just generated on his own mind. Let me give you some lessons on this. Somalia is one country, one people, one religion that fought together for independence from the colonial. And Somalia is again one that's fighting terrorist organizations in the Horn of Africa as a one group, one religion, one ethnic group. And then when you say the Somaliland, that was a British Somaliland, it was two regions, the Northeast region and Northwest region. And now Northeast region is part of which is 45% of the land and the population are part of the federal government of Somalia. What we're talking about is Northwest, which is also having a problem. Half of Northwest is now all the region, which is close to the Djibouti border. And they are totally against what the Isaq people that you say Isaq genocide. And there was no such genocide in Somalia that took place. Somalia had a civil war, and the civil war has its own effects. And we believe the civil war was also haddii aan eego wadamada sida gaarka indhaha loogu hayay oo doodooda la sugayo waxa ka mid ah Mareykanka. waxay tilmaameen in siyaasadoodii Somaliland iyo Soomaaliyaba ku aadanayd aanay waxba iska bedelin. saate Israel waxeeda iyaga ay gaar u yihiin waxna ma cabaareen waxna ma ogolaan. marka laba wajiilayn ayaa ka muuqanaysa halkaasi. dowladda federaalka ee Ruushka ayaa ka mid ahayd dadka caawa hadalkooda la sugayay, laakiin waxay yiraahdeen tallaabooyinka Israel ee ku dhaqaaqeen lama aqbalayo. dowladda Turkiga oo ka mid ahayd wadamada hadallada togan ee aadka u miisaanka cusla jeediyana waxay yiraahdeen Israel waxay samaysay arrin qatarteeda leh oo badda cas iyo saameynteeda qaban kara, isla markaana bedeli kara nabadgelyada gobolka ka jirta waa geeska Afrika
waxaana intaa ku dareen in Soomaaliya uu kala dhaxeeyo heshiis amni oo istiraatiiji ah halkaasna ay ka dhigan tahay in cid kasta ay waxay samayso aanay aqbali karin hadalkaas oo marka luuqadda diblomaasiyadda lagu fasiro uu Turkigu sheegay in uu diyaar u yahay difaaca Soomaaliya dawlado fara badan ayaa ka hadlay ururo ay ka mid yihiin jaamacadda Carabta waxaana ay tilmaameen dhammaantood si isku mid ah inay uga soo horjeedaan waxa Israa'iil ay ku dhaqaaqday Faransiisku Soomaaliya ayuu garab istaagay marka waxa muuqanaya doodda diblomaasiyadeed ee caawa golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ka soconaya durbaba Soomaaliya inay xaqiijinayso guulo diblomaasiyadeed oo waaweyn waliba taas oo ka dhigan in dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Danjira Abuukar Baalle oo caawa ku sifoobay halyeey qaran oo weyn in ay shaqo aad muhiim ah u qabteen taas oo guud ahaanba Soomaalida ka dhigan fagaara muhiim ah in lagu matalay oo qarannimadooda wadajirka daleed iyo madax bannaanida jamhuuriyadda si weyn loo xaqiijinay